waxaan idiin soo gudbin doonaa qisada filim American ah oo lagu magacaabo Camp X-Ray. waa gabadh askariyad ah oo lagu magacaabo Kristen Stewart. waxaa loo soo bedelay xabsiga weyn ee Guantanamo Bay. ku soo dhawaada xubinteena maanta. magacaygu waa Cali Ibrahim. filimkan wuxuu ku bilaabmayaa dhacdadii 11 Sebtembar. markii ay dhacday ayaa wiil lagu magacaabo Cali Caamir uu galay gurigiisa si uu u tukado mid ka mid ah salaadaha faralka ah. kadib si aan qorshaysnayn ayaa loo afduubay iyadoo loo qaaday xabsiga cadaabta ah ee Guantanamo Bay ee ku yaala meel ka mid ah jasiiradda dalka Cuba. muddo 8 sano ah kadib, ciidamada gaarka ah ee ilaalada xabsiga Guantanamo Bay waxaa lagu soo daray Kristen Stewart si ay ula sii shaqayso kooxdaasi. balse Kristen uma aysan bogin qaabka ay xaruntu u maamusho maxaabiista u xidhan. iyadoo shaqada ku jirta ayaa maxbuus Cali Caamir waxa uu isku dayay in uu la sheekaysto Kristen Stewart, balse askariyadu diyaar uma aha hadalka maxbuuska. Cali wuxuu ka cadhooday kibirka ku jira Stewart, taas beddelkeeda wuxuu ku soo tuuray saxaradiisa. balse nasiib wanaag waxay hiil ka heshay tiimkii ay wada shaqaynayeen. maxaabiista waxaa si joogto ah loogu keenaa wargeysyo iyo buugaag si looga ilaaliyo xanuunada ka dhashay isku buuqa uu sababi karo qolka cidlada ah. shaqadaas waxaa si maalinlaha u qabata Kristen Stewart. Cali wuxuu marmarka qaar isku dayaa naftiisa in uu haligo sababo la xidhiidha inuu dhibsanayo sabab la'aanta uu ku xidhan yahay. xaaladaas marka uu galana ciidamada ayaa u isticmaala sunta 069 si looga hortago in ay dib u timaado. Kristen Stewart waxa ay tagtay qolka xafiiska si ay u baadho faylka ama galdambiyeedka Cali Caamir, waxayna ku aragtay arrimo iska hor imanaya. sidoo kale waxay ku aragtay faylka in uu daaha ka qaadayo in uu leeyahay taariikh isdilid ah iyo arrimo anshax xumo, waxayna la yaabtay sababta ay uga suurtowdo qof muslim ah arrintaasi. muddo 4 maalmood ah kadib, Cali Caamir waxa uu ka raaligeliyay Kristen arrimihii xadgudubka ah ee uu u geystay. sidoo kale wuxuu u sheegay in uu ku dhashay magaalada Bremen ee dalka Jarmalka, isla markaana aanu lug ku lahayn kooxaha argagixisada ah ee ka howlgala waqooyiga Afghanistan. 8 bilood kadib, Ransdale oo la shaqeeya Kristen Stewart ayaa wuxuu been u sheegay korneylka ama taliyaha xabsiga, wuxuuna yidhi Kristen iyo Cali Caamir waxaa ka dhaxeeya xiriir jacayl, taasi oo dembi weyn ku noqon karta Kristen ilaa laga eriyo ciidamada neefiga ee Mareykanka. Kristen Stewart waxay taliyaheeda u gudbisay warbixin cabasho oo ay ka cabanayso Ransdale. taliyaha xabsigu waxa uu u yeedhay Ransdale si uu uga jawaabo eedeymaha loo haysto, balse Ransdale darajo ahaan waxa uu ka sarreeyaa Kristen. nasiib darro faylkeedii dib looma furin, waxaana lagu ciqaabay in loo bedelo shaqada habeenkii. habeenada ka mid ah oo ku dhow dhammaadka safarkii Kristen ee Guantanamo Bay ee loo bedeli lahaa goob kale, ayaa Cali waxa uu kitaabkiisa quraanka kala soo baxay daab ku qarsoonaa si uu naftiisa wax ugu gaadhsiiyo. Kristen oo muddo ka gaabsanaysay maxbuuska ayaa si kadisa ugu sheegtay magaceeda iyo halka ay ka timid si ay naftiisa ugu badbaadiso. halkaas marka ay marayso waxaa cad in dareenkeeda ku aadan maxbuusku uu ka dabcay maadaama ay ka murugtay suurtagalnimada in uu dhinto. Kristen waxay u qaaday jacayl, balse ma midoobi karaan sababo la xidhiidha kala duwanaanshaha diimeed. Kristen Stewart waxa u timid warqadeedii beddelka iyadoo ilmeynaysa ayay ka tagtay Guantanamo Bay. muddo markii ay maqnayd waxay hadiyad ugu soo dirtay buugga Harry Potter. markii uu furay buugga wuxuu ku arkay qoraal sheegaya: Cali, ma ogi in aad tahay nin wanaagsan, balse waxaan ogahay in aad tahay jacaylkayga. intaas ayaan ku soo afmeerayaa xubinteennii maanta. mar kale inta aynu warbixin xiise leh ku kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa nooli kulante.